السلام عليكم ميد إبراهيم $14 waxaa u bedelay lacag $500 insha Allah lacagtan waa soo wada bixiyay saagisa ka arkirtay waxaana rabaa in aan isticmaalo sida ugu macquulsan oo markaas aan ku isticmaalo lahayn remember waxa leeyahay 7 sano oo khibrada suuq forex trading ka dhowr jeer waa sameyn in lacag akoon yar lagu shubo dan meel gaarsiin laakiin inta badan waxay noqotay lacag dib inay ka gooto maadaama marka professional trader ahay oo aan experience aan leeyahay waxaan bartay sida saxda ah ee loo isticmaalo lacag walba oo la flip gareey marka muuqaalka insha Allah asla socono lacagtaas qaabka aan ku isticmaalo لين guys asoo baxad banankan socda maanta waxa badan asmeyn doona insha Allah hadda waxa ka imaaday isbitaal maama eedade oo dhashay aan soo fiirnaa aniga quraan ka ugu soo tufay ilaahay awlaad inta dhalatay iyo inta dhalad doontaba ilaahay xifdiyo marka insha Allah guys maanta waxa asmeyn doona xakamid ah in spa sameeyo because waxa waxaan ka dareemayaa murq inuu iga haayo so insha Allah spa aad doona kadib swimming pool aaro ina aado laakiin hawada hada fiirisid way adag tahay in swimming pool la sameeyo qabow iyo waxaas waa isku ma fiicnaanay ma garateen kadib insha Allah activities hadii aan markaas ka gaar gaar sameyn doona inkasto maxaa la yiraahdaa maanta class aan leeyahay oo ardayda elite ah oo markaas train gareyso oo master room ku jirto aan balansanahay qaab aan markaas stay to the left to ring road qaabka markaas aan ku sameyn lahayn plan oo isheeg qomadeena ku kori lahayn isoo kala dhowr su'aalood weydiiyeen oo kamid ah sida cabsida trading la iskaga saaro marka mawduucaas ayaa maanta iskuulka ku leenahay waa maalin axada oo maalinta inaa soo baashaa lagu talgalay laakiin waxaan baashaa lahayd dadkayga dhiban yihiin baashaal email waa in aan ka jaahil bixiyaa sidoo kale waa inaa tababar oo cilmi u ziyaada waxyaabaha aysan jirnin iskuulkeena wuxuu ku fiican yahay dadka Nairobi joogo kale way imaan karaan waxa leenahay xarun markaas aad imaan kartid dadka ka maqan waxa leenahay online classes saad galabto kale markii ardayda inta imaan karta imaadaan inta maqan waxa waa loo duwaa classkaas meel ay lagu keedina waa kuwa online ka ah laakiin kuwa imaan kara imaada kuwaas waa qalad Soomaaliya in 10 meel loo dhigo lacag $14 ah waxa u bedelay $500 ah in a span of 1 week marka waxa rabaa inaan muuqaalkan kugu tusiyo faa'iidada ay leedahay hadii forex si sax ah u sameeysid lacagtaas basically waa soo bixi doonaa kulligoodna waa sida saxda ah markaas u isticmaali doonaa insha Allah كل شيء بعد الصلاة كدب ayaa wax la sameyn doonaa insha Allah marka soo tukana hadda waana soo baxay gaariga ku laabanaa soo qaadanaa insha Allah basically salaada waa zero spending lacag laga maro waxa waa adeedan ku taa ilaahay mar walba ku leeyahay tuko si adduunka aakhir u liiban marka waxa waa adeedan ku mooge dadka qaar waxa u maleeyaan salaad markay tukadaan ilaahay salaada tukaday waxaan si so salaada tukanaysa favor ma ahan salaada tukanayna basically waxa waa in ilaahay aan waajibaadkuna saar inaan ka soo baxno favor ilaahay u sameeyna ma marka salaada la tukado meeshaasna qodobkaas aad hal waadkay marka adan waxa imaan maqaaxi inkastoo saaka soo quraacdaan aan baahnayn adan still waa inaad lacagtii aan isticmaalnaa Soomaa laakiin lacagtu ma isticmaali doono waa inaan isticmaalnaa waxa isticmaali doonaa si aqliyaysan because waxa ku dhahay $14 $500 lacag badan waa soo lacagta waxa u baahanahay in aad sida ugu macquulsan ugu aqliyaysan aad isticmaal karin aad isticmaal qaybta kooda ka bilaabo waxay tahay in markaas calooshayda aan geliyo si aan u buurto ay dhahdaan ninkan waa forex trader
so basically hadda cuntada dalbade cunto waliba caafimaad leh marway lacagteedina isku dilo so basically Soomaali hadaan ama in general bilaadanka Soomaali kuma qabno waxa jecelnahay inaan cunno maanta dhan afkeena waxyaabo dhanaanka inaan raacno which is not good waxaan trader hadaa tahay waa inaa gym qaada waa inaa cunto caafimaad cunta waa inaa discipline leedahay so basically gym ka hada bilaaway sababta xanuun marka hore gym kiga celinaa jirta aan gali karin marka insha Allah isoo duceeyo inaan ku guuleysto oo aan muruqaawi noqdo ya ragga gym ka qaada aan markaas xawadka la galo marka inta cunto sugaa waxa rabaa inaan qodobada ku sheego mid koowaad marka akoon lacag asaas ka qaadaysid oo aweeneynaysid horta mid koowaad waxay u baahan tahay cilmi inaad leedahay waxay u baahan tahay inaad leedahay experience inaad leedahay wixii khibrad aad leedahay khibradda maxaa ka wadaa khibradda waxa ka wadaa waa inaad hore u soo sameysay oo akoon badan ka soo gubteen adiga wax baranaya markaas so sababta saas oo leeyahay waxay tahay bilaadanka mar walba wuxuu jecel yahay in khaladka asi uu sameeyo wax ugu barto laakiin hadda maanta khaladkii aad ku sheegay wax ka baratid adiga xataa akoon badan gubin waa still waa sameyn kartaa laakiin tan waxa ii fududeynaa inaan sameeyo waa inaan akoon badan aan isheeg aan ka soo tilaabsado oo aan waxyaabo badan aan soo fahmo so qaladka aan soo fahmay over the last 7 years waxay keeneen in maanta aan isheeg akoon yareer aan isku testigrey so basically ma ahan aan testigreyna xataa tan waxa keentay arday badan ay u dhameed ada akoon weyn haysta lacag badan ku sabtanta so waxaan dhahay okay guys it's not about lacagta ay haystid it's about cilmiga ay haystid waa cilmiga so tan waxa marka u keenay inaad dadka ku tusay in waxaan cilmi u baahan yahay ma ahan akoon badan is either two things ina meel fadhiistid oo qof amaanta dhan wax ka sheegtid ama isheeg xan adaawid ama tiktok isku mashquulsid or in qof horumar sameynaa aad fiirisid dhaadada qofka dhankan positive wax ka qaato dhanka positive wax ka qaado dhanka positive wax ka sameeyo taas horumar waa ku sameyn kartaa naftaada marka qodobka saddexaad ku sheegay waxay tahay waxaan ma imaan doonaa akoon $40 ka qaadi $500 gaas $1 gaarsiis ama ana $100 akoon ka qaadi $1 gaarsiis ma imaan doonto overnight waxaad inaad fursad bilaawid biri asnayn kartaa ma waxa long term kaaga baahan wax kaaga baahan in shaqo badan aad liimaad suuqa laakiin waa waxa sameyn kartid muhiimad ugu weyn xitaa hadii aad shaqo la imaadameed waxa mihiin wax aad sameyn kartid yes of course weeyihiin wax aad sameyn kartid naftaada aamin processka aamin qorshe deji then shaqada la imaa wixii qabo then discipline ku dabaq then lacagta ida iska imaan doonto so basically maqaayadaha noocan oo kale wallahi waxay ahaan jirtay maqaayada aan marka aad dad kale markay tagaan oo kale ku farxi jiray laakiin mirbin maano bina qofka chapterkiis fiirsado waxa u baahanahay sidoo kale chapterkii inaad la fiirsado waxa u baahanahay sidoo kale adiga chapterka inaad fiirsado okay because muqaalka waxa daawanayso xitaa inaad chapter noocan oo kale yeelatid the only way aad ku sameyn karto xitaa mid koowaad cilmi raadso mid labaad aamin waxaan inay yihiin wax long term ah mid saddexaad experience u baahan tahay overnight success ma so intaas hadii aad go'aanstid aad waxaan waqti u baahan waqtiga waa gelina $40 $500 xitaa $40 $10,000 sameyn kartaa $10,000 $100,000 sameyn kartaa muhiimada forex loo trade garanayna ma ahan inaad lacag kaliya tahay muhiimada loo trade garanayna waxay tahay in weekend maalmo bay ku noqoto xalay shakara nisina fanay ma wala meel aadnay then saaxiibkii isla soconay waxaan ku dhahnay dadka maanta meeshan waxay u badan yihiin markaas wuxuu dhahay inuu weekend waa because wuxuu dhahay okay saasina waa ka aamus intaas wuxuu dhahay adiga ma dareemayso maalmo walba weekend ku taa because maalmo 5 saac soo kacda waa iska qoslina foodo naga dhaafa ku dhahay laakiin basically sida saxda loo fiiriyo waa sax every day weekend ku taa marka trader taa soo maalinta waxay bilaabanaysaa half day marka dadka soo wada kaceen shaqo aadeen kadib maalinta bilaabanaysaa ay markay qada soo aadayaan waa markay aadeen maalinta bilaabanaysaa that's why marwal vlog oo aragtaa inuu bilaabanayo xiliyada maalinka dhaxdiisa marka boys and girls muqaalkan insha Allah waxa qaybta marka inta dhamayso waxa ku xigto qaybta ku xigta daabo anigu ku breakdown gareenayo sidii aan markaas u soo sharaxay fundamentalka isoo kale weega bilaawiisa sida aan u soo sheegay moveska DXY inuu buy noqon doono kadib inuu sell imaan doono kadib buy inuu sii noqon doono intaba muqaalka si daabo waana kaga badan doontaa sidoo sharaxay so guys galaba la gaaray maqaayada iska soo daahane marka bumps class la yahay oo xasaasaak soo xidin sheegay ardayda balmi maanta waxaan dhahay maada waxyaabo idinka dhiman idin tusinaa marka so I think waxyaabo activities kala hadwa qaban doonaa so now ina class ka aadno we need to go to class dadka loo ina soo barnaa sida eegna financial independent u noqon okay guys hadda salaada casirka tukane class ka aad doonaa xiligoona haya you know what we can askar xisanaay so balanta asdeeda oo qabtaa imaaday but raaxada intii dhig because ayagana raaxistaan oo raasa ku sheegay class-kana aad gaari si diyaarad amal adoolino so guys we made it school-kana imaaday ardayda soo galaan makhriba kala aadnay soo hadda soo tukane marka hadda soo galayaan
trading flowgeena waa kana waxaa leenahay xafiiskeena oo main office-ka ah sida tan u yaar loogada saaran tahay iyo sidoo kale waxaa leenahay trading room oo aan ku trade gareyno kuraasta waa isticmaalayna waa qaadane sidoo kale waxaa leenahay class kit oo ardayda ah oo isugu jirto wiilal iyo gabar sidoo kale TV aad u weyn marka reception keeni oo halkaan ah iyo macalinkeena macalin xul baale how are you macalin maanta weekend ah ina ardayda u sacrifice gareynaysa kulata great feeling yeah marka reception area waa tana schoolkana waa kana entrance-kiisa yeah guys this is how our school looks inta waxa ku dhan loogadii made forex anniversary 7 sano trade gareynaa marka yeah guys adiga iska wataa in salaad marka la soo laabtaa sugaya si classka aan fadhiisano aan actually classka u buuxsama ta kuraasta trading floor ya isticmaalo alxamdulillah marka waa kaas hadaa isweydiinayso location meesha ku yaalo schoolka location-kiisa waa kaas made forex trading floor so numberkaas ana private wato ay la soo xiriiri kartaa sidoo kale numberka schoolka waa isticmaali kartaa bishan Instagram-ka waa soo heli kartaa haddana xaafadda imaanay waxaa weeyaan waa soo daala guys waynay u adkaatay in maalinkii asoo sababta ardayda marka u tagay waxaa kasoo tagay 2 saac minimo then waxaa u tagay cunug yaraa ee dadii dhashay markaas soo salaamay halkaas ay waqti badan ku qaatay kadib waxaa aaday magaalada hoose saaxiibkiis aragnay 1 2 3 isdhahnay then waa TKF sidaas oo arkaysay meesha aan joognay haddana xaafadda ku soo laabtay so basically computerka dhowran ma daarin uu culus yahay asiga suuqayna soo daarmo then analyze-kii wigina sameysto and actually full analysis مسمين صوت ودالنا هاي وحاليا مسكحلي إنسان active فيهن أو واح يعني halfway أسمه so basically واحدة أكيد أنا updates weekend كداعي then full analysis بنسوا حاسس مسدونا إن شاء الله مقال كان هكذا سويك ويجي هاي هدي أكيش مقال نوعا وكلا subscribe تا like تشارك السار سي مركز يعني ندير قلنا نقطة مقالة بدو صوص منه so كلا comment يوسف قر فكر كذا واسع أوكي مدو حاجته أنا قلوا lacagta maanta meeqa isticmaashay so $14 $500 waxa ka isticmaal basically $100 iyo $2 $10 waxa ku baxday cuntada $10 waxa ku baxday shidaal $2 waxa ku baxday kaawash so maalin inta kale lacag maan isticmaalno waxa spagna aad way ugu adkaatay laakiin fikirka la soo dhaawaa lacag spag aad ilahay in walaalkii yar hadda dhashay aan ugu adeego oo markaas asiga ugu hadiyay sidoo kale lacagta qaar insha Allah sida mar walba caadiga lacag markay ku soo gasho waxa fiican Ilaahay subhanahu wa ta'ala na xasuustid كم هادسيد سو كلا ضدكم ساكين عابس إن شاء الله لعقت خير كميدا عنكم سمين دنا anyways خير كميدا إن شاء الله والدك يا وحاول سمين دنا shopping سو كلا عقل لو بقول $1 وحدي بقول $1 أكونك وإن شاء الله واسكت $1 إن at least أجرسين كلا $1 تاجد كي $1 معها لكن فكر كي $1 so تاجد ملي أكونك whatever $1 كلي هل تاجد عليه إن trade plus A setup plus أقعد وليبو وسمعنا and A plus strategy. So basically that's the only target عليها that's the only goal because حاولها مرة بقى دونك يعني دونك لا مرة بقى فوركس التارجت كلها هتد وحاول سيد عيانك عمل والوبو فينا إيفنتد مركا ماشي سوا واحد بيجي إن شاء الله مقال كان سبسكرايب كا لايك تا سا سي مركز أو نقطة داول كم ده مد okay let's try 1 2 3 yes